maalinba maalinta ka dambaysa waxaa sii xoogaysanaya dhoolotuska dabaaldega iyo wacdaraha xisbiga talada dalka iyo kulmiye ku soo bandhigayo fagaaraha khayriyada ee magaalada Burco. jawiga saaka iyo Burco oo ah maalintii afraad ee xisbiga talada dalka iyo kulmiye ayay taageerayaashu ku soo labisteen calanka muuqa dheer ee astaanta u ah xisbiga kulmiye kana kooban midabada dooga iyo huruuda. gudoomiye ku-xigeenka xisbiga talada dalka iyo kulmiye Maxamed Kaahin Axmed, wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta daljoog iyo dibadjoog taabacsan siyaasadda xisbiga kulmiye ayaa kala qayb galay dadweynaha reer Burco. saraakiil iyo xubno tiro badan oo iska casilay xisbiga mucaaradka ee waddan oo isugu jira hable iyo wiilal ayaa fagaaraha khayriyada Burco lagu soo bandhigay saaka. xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka ee Burco ayaa si weyn uga mahadnaqay taageerada iyo cududda ay muujiyeen bulshadani. shaqo qaran ha loo diyaar garoobo, ha lagu taageero gudoomiyaha. wuxuu yidhi haddii talo intay gaaxsan tahay la isku soo gaadho gafuur la qabtay iyo waylahayd gar iyo riixdiin girgirkaad qumbaa haysatiyo gadowga mooyaane mar hadduu siduu kaa galbaday geedi kaa socoy sow inaynu xisbiga kulmiye iyo musabixi soo saarno. Soomaaliya ha noolaato, kulmiye ha noolaado, musabixi ha guulaysto. qaar ka mid ah guddida ololaha xisbiga kulmiye ee Togdheer iyo saraakiisha laamaha dibadda ee xisbiga kulmiye ayaa iyaguna tilmaamay in barnaamijka xisbiga kulmiye yahay mid ka turjumaya himilada hiigsiga iyo hayaanka fog ee Somaliland. halka joogay waa Maxamed Biixi Yoonis, waa Ismaaciil Yare, waa rag dawladii hore ka soo shaqeeyey, waa raggii ka qayb galay inqilaabkii la doonayey dawladda jamhuuriyadda Somaliland ee Axmed Maxamed Maxamuud Siinaye hogaaminayo inay inqilaabaan. inaynu nabadda ilaalinaa. xisbiga kulmiye waa xisbigii nabadda, waa xisbigii horumarka, waa xisbigii cadaaladda. waxaa barnaamijka ku jirta xisbigan kulmiye, waxaa barnaamijkiisa ku jirta muuse aan isku ognahay xarunta gobolka Togdheer ee Burco inay noqoto xarunta shidaalka Somaliland iyo Geeska Afrika. shidaalkaas waa maxay? waa xoolaha. wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta Somaliland oo bulshada Togdheer ku calaamadsatay halyeega howlkarka ah ee Cali Xasan Maxamed Cali Marreexaan ayaa ka waramay waxqabadka baaxadda leh xisbiga kulmiye dalka ka hirgeliyay 7 sano. ma oran karaan kulmiye waxba muu qabanin, waayo dadka 5 sano ee dheeraadkii horreeyay iyaga dawladda dadka ugu badan ku jiray. qolada kale aan ku jirin waddanigii horaana waxay yiraahdaan waddani waa lagu hoogay, waa lagu jabay. dabadna iyaga markay sag fadhiyaan ba iyaga isqanjiriyaan halka ka daa kaambeykoodu waa dhabaqsan yahay. horta innagu maxaynu leenahay? waxbaynu qabannay, ummaddoo dhan baa ka markhaatiya. wax alla waxaa gees ilaa gees laga warramayo ee waxqabada, ee horumara, ee investmana, ee arrimaha dibadda laga qabtay, ee waddooyinka laga qabtay, ee dhaqaalaha laga qabtay, ee darajada ciidanka laga qabtay, ee dhinac kasta laga qabtay, ee dhismayaasha laga qabtay, ee dadka aqoontiisa wax laga qabtay, ee shaqaalihii 7 jeer lama laabmay, ee jaamacaduhu bateen. waxaasoo dhammi waa tacabkii kulmiye, waddooyinku waa tacabkii kulmiye. Maxamed Kaahin Axmed, gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga kulmiye ayaa gebi ahaanba markii uu qabsaday mikrofoonka jawiga madashu isbedelay sacab iyo ereyo soo dhoweyn ay ku qaabileen bulshadu kadib waxa uu ka waramay siyaasadda xisbiga kulmiye. xisbiga kulmiye muddadii hore uu dalka xilka u hayay barnaamij siyaasadeed oo tafatiran buu la yimi, kaasuu ku soconayey. maantana waxaa haysaa barnaamijkiisii tafatirnaaye uu maxaanku dhahdaa dalka ku maamulayay. cabsaaq faarax cabdilaahi, TV-ga qaranka Somaliland, Burco.